anigu kufsi baan galay muddo dambe sharaxaad ka bixin kufsiga ay saa u gashay iyo cidda kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay caaisha kufsatay subxaanallah noo sharaxaad naga sii su-aale iyo weydii kufsigu noocuu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa shaydaan baa kollay sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado cabdishakuur maxamed dige cabdishakuur maxamed dige subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar caaisha isagaa afduubay isagaa gurigiisa geeyey anigu waa uu soo wacay keliya cabdishakuur maxamed dige waxaa degan isaga iyo hooyadiis may aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigeyga hortaagan waan la distay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaano aniga iga soo horjeedaan waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxa aan ka hadlaya wayse qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid banaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanahay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anugu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin aadan maxamuud cabdille cabdille maxamuud cabdille maxamuud cabdille yes hala fariisto dhaqdhaqaaq ma jiro ninka wixii xaalad amniga ciidamada ammaanka u xilsaaran abukaata xabiib fariiso adood maxkamadda aadan maxamuud cabdille may si fiican ninkaa dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada galkacyuuna degan yahay aadan maxamed cabdille yes waana reer gaalkacyood
وكا حويان عبد الشكور وايقان صدح ذي الناس لبدي الناس يا عبد الشكور صدح ذي الناس في عدة دنبية قشة مدن قدومي حويان آدم دا آدم أنا هل سنة كوينها هي أما الله بس أنا وإحنا عاسى مركي عن قياس مركي عن قياس دا إيسا ما قرت ولا الكي ماشي waxa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonay inaan isku hidaraac noqonay taasna waxaan ku mari karaa waxa weeyaan shariicada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyay waxaana inay kufsi kaliya noqon doonaan waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii deyn doono sidaasaan go'aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyay gurigiisii taala gabadha yes عبد الشكور علاقات مثال بين كل حي وريها لما سافر لك مثال بسجلان ما قدم بيا نوع عن خلا هروش واحد دنبي أنا قال لي متشرو كوف سهرة أنا وقال لي متشرو كوفسي أما دنبي ولي لا ما أمني إيمان سقمن سلقنا كم برين ما قاعد يقولون أوبي مقل عبد الشكور لو يقولون إسكسور شيئا دقنا هدريق بانه ده حي قياستي كو قياسا لبي 8 متر لبي 8 طلاب حواليان waxaan kaloo cadaynayaa walaalkay inuu dambiga berri ka yahay aanan lagu khasbin aanan wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya si fiican deris baa ahayn si fiican may subaxaas markii aan weydiiyey cabdishakuur oo aan u sababeeyey aan ku idhi sababtan ugu kalifi karta waa maxay adoo gurigaaga noogu yeeray aniga aadanba inaan falkan kula galna maxay tahay waa mid aniga maskaxdeeda iyo go'aankayga ka yimid buu yidhi anaa gabadha rabay anaa gabadha waqti dheer daba socday idinkuna waxa weeyaan maadaama goobtii faldambiyeedka uu ka dhacaya aad ila joogtaan waxaad ku khasbanaan doontaan waxa weeyaan inaad falkan ila gashaan haddii aydan ila gelin gabadhu iyadoo nabad qabtaan sii dayn doonaa waxa weeyaan wejiyadiinana way aragta waan idin sheegi doontaa cid idinka aamini doontana ma jirto inaad falkaas waxa weeye aydan geysan may gabar walaashiisa oo umushay bay inta badan ku mashquulsanaan jirta cabdishakuur hooyadiisu ii sheegay qolkuna irid bannaan buu ahaa carruur yar yar unbaa joogtay isagii hooyadiis iyo wiil walaalkiis oo xanuunsan oo qol ku xidhan oo waalan macna habeennimadii isoo gurigiisa ku hor qayilayaan soo maray anoo magaalada ka imid waxaan ku idhi ilaa haddeertaan wax dhawaqoo isoo gaaray ma jirto gabadhii maxaad usii dayn weyda aawe anoo sharaftayda iyo da'da aan idinka weynahay tix raacaya waxaan go'aan ku gaaray buu yidhi inaan gabadha dilo dil kadibna waxaan u raaciyey inaan magaalada meel ka baxsan meydkeedii geeyey intaa markuu ii sheegay anigu gurigaygaan iska galay go'aanna waxaan ku gaaray wax walboo soo baxa xaqiiqadu inaysan isqarin doonin sida maanta xaqiiqadeeda u soo baxay kadib salaadii subax waxaan ku waabidriistay waxaa la yidhi xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka dilaacaa cabdishakuur waan ku dhammaynayaa cabdishakuur wuxuu ii sheegay gabadha meydkeeda inuu bannaanka geeyey anna salaadii subax aan u tukanaya qaayilo dariskaan ku waabariistay iyo gabadha meydkeedoo yaalla meel isaga gurigiisa aan saa uga fogay anigu may laakiin dadkii la qaaday baan wax ka raacay may dadkii isbitaalka gabadha meydkeeda geeyey baan ka wadaa subaxnimadii markii la toosay b s f ta aniga wareysatay aadan waa u yeertay habeenada ka mida kadibna dee maxaabiista waa la kala qarinayay sibaa loo kala qarinayay aadan maxaabiistii garowa loo soo qaaday kuma jirin mana garan kara sababta su-aalaa la weydiiyey may ilaa iyo markii ugu dambeysay hoggaanka c I d da oo xabsigu igu soo booqday
raal ku yahay oo dadka kursigaas ummadana maqlaysay ummadana maqlaysay waan gumid